Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaynu mowduuceena ku soo qaadanaynaa waxyaalaha keena xanaaqa iyo sida la iskaga ilaalin karo. Xanaaq waa dareen ka dhasha shucuur adag, wuxuuna la xiriiraa waxyaalaha qaar ee sababa raaxa la'aan iyo qofka inuu caroodo. Xanaaqu wuxuu ka mid yahay 6 dareen ee asaasiga ah sida farxadda, xanaaqa, layaabka, baqdinta, iyo necbaanshaha ama karaahiyada. Xanaaqu sidoo kale waa dareen nagu dhiirigelinaya inaan noqono qofka iskaafiya. Hase yeeshee mararka qaar waxaa jira jawaab celin daran oo ka dhalata xanaaqa, taas oo uu qofku ka qoomameeya marka ay shucuurtiisu degto. Sidaa daraaddeed, waa muhiim inuu qofku uu isbaro sida loo maareeyo jawaab celinta ka dhalata xanaaqa. Arrinta koowaad, fasax qaado isla inaad xanaaqsan tahay. Waxaad fasax ka qaadataa wax walba oo aad samaynaysid markaas, iyo wax walba oo kaa cadhaysiin kara si aad u dejisid dareenkaaga. Mar walba xasuusnow, qasab maaha inaad u jawaabtid amba aad wax ka qabatid xaaladda markaas taagan. Ka qaado fursad aad ku nasatid oo aadna uga fikirtid xaaladda markaas taagan, oo waxaad ku dhahdaa naftaada, waxaan u soo laaban arrintan 10 daqiiqo kadib marka aan dego. Haddii aad xanaaqtid adigoo jooga goobo shaqo, u soo bax dibadda si aad u qaadatid neecaw wanaagsan. Haddii aad xanaaqdid adigoo jooga gurigaaga, isku day in aad geshid qol kale oo aad ku nasatid, amaba suuliga, si aad u heshid jawi aad keligaaga ku sugan tahay. Kadibna ka fikir marxaladda taagan. Arrinka labaad ee uu qofku samaynayo markuu xanaaqo waxa weeyaan, u oggolow naftaada in ay dareento xanaaqa. Xanaaqa waa dareen caadi ah oo dadka dhan ay dareemaan. Sidaa darteed, sii naftaada waqti yar oo ay ku dareento xanaaqa, si aad u aqbashid xaaladda kula soo gudboonaata oo aadna horay uga sii socotid. Marka aad horay uga dhaqaaqdid, isku day in aysan kugu soo laaban dareenka xanaaqaas, kana dhaadhici naftaada in aad horay uga dhaqaaqday arrinkaas. Arrinka saddexaad waxa weeyaan, qaado neef qoto dheer. Neefsasho qoto dheer waa tillaabooyinka ugu muhiimsan ee la qaado si loo kordhiyo oksijiinka dhiigga. Sababtoo ah haddii ay siyaado oksijiinka dhiigga, waxaa siyaada dhiigga socodka maskaxda. Tiri ilaa 3 adigoo jiidaya neefta. Istaaji oo tiri ilaa 3 inta aadan soo bixin hawada. Xaqiiji neefsashadaada inay ballaariso sambabada iyo caloosha. Sii wad neefsashada ilaa aad ka dareentid in aad degtay. Arrinka afaraad, istusi muuqaal wanaagsan. Haddii aad weli dareemaysid in aadan degin, qiyaas adigoo jooga meel muuqaal ku farxad geliya leh. Kana fikir iftiinkeeda, neecawdeeda, iyo quruxdeeda. Waa caadi haddii ay tahay muuqaal aad aragtay carruurnimadaadii. Arrinka shanaad, isbar in aad kula hadashid naftaada hadal wanaagsan. Beddel ku samee sida aad uga fikirtid waxyaabaha qaar oo ah si xun, una beddel in aad uga fikirtid si wanaagsan. Tusaale ahaan, beddel fikirka ku saabsan qofka kaa xanaajiyey xilliga aad gaadhiga waday. Xayawaankaasi wuu i jiiri gaadhay maanta, gaadhiga ayuuna iga jiidhay. U beddel, miskiinkaas maanta wuu degdegsanaa, waxaana laga yaabaa in uu dhakhtarka ka daahsanaa, laakiin alxamdulillaah, Eebbe waa i badbaadiyey. Arrinka lixaad, samee dhaqdhaqaaqa jidhka. Jimicsiga ayaa muhiimad weyn u leh caafimaadka qaabka jidhka bani'aadamka guud ahaan.
dhaqdhaqaaqa jidhka oo la joogteeyo waxa ay xakamaysaa dareennada qaar uu xanaaqu ka mid yahay. Jimicsiyada ama dhaqdhaqaaqyada wanaagsan xanaaqa waxaa ka mid ah orodka, kubadda cagta oo tagan oo aad ciyaarto, dabaasha, kubadda kolayga oo aad ciyaarto, jimicsiga miisaanka, jimicsiga feerka. Seexo hurdo kugu filan. Arrinka toddobaad waxa weeyaan seexo hurdo kugu filan. Hurdada waa shay asaasi u ah jidhka. Haddii laga tagana waxa ay sababtaa in dareemaha qofka ay khalkhalaan. Dadka weyn waxa ay u baahan yihiin 7 ilaa 8 saacadood oo hurdo ah si caafimaadka qaabka jidhka iyo maskaxda ay u noqoto mid sareysa. Hurdada oo nuqsaanta waxa ay qayb weyn ka qaadanaysaa cudurro badan iyo awood la'aanta xakamaynta dareemaha qofka. Intaa waxaa inugu soo gabagaboobay qaabaha qofku uu kaga hortegayo marka uu xanaaqo. Waxaan filayay inaad ka faa'iidaysatay, waanaad ku mahadsan tahay daawashadaada. Fadlan ha ilaabin in aad like noo saartid, subscription aad noo raacisid. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa walaalkiin Cabdiraxmaan oo idiin soo jeediyey barnaamijka.